maalintii 2016 dacwadda socotay asoo halka jooga ayaa la warsaday waraysi lala yeeshay waxaa la yidhi war dowladda Soomaaliyeed xaq ma u leedahay inay maxkamadda waa dhihi waay wuxuu ku celceliyay haddii Kenya waxay leedahay isfahan aan la gaarin dadkii xataa waa dhihi waayey maxkamadda aan yidsana maxkamadda Soomaaliya inay dowladda Soomaaliya inay geyso maxkamad waa yidsana waa dhihi waayey السلام عليكم خياري كسر دواده هالنولاتو أنا أقول ويانا حسين عبدي وحن هالكن كوري سنة يا رئيس الوزراء وراء الصومالي عمر عبد الرشيد علي شرماركي برنامج كان جودهم وحكوسها بسنة هاي قضية بدأ وساد كور قبطان لقي عبد بدن الصومالية إن أي حقوق قلتن كهستان أما حقوق صحدها وبهنايان إنسان هلي قفك وجوه بون وعيلتها إن لو يديه ورئيس الوزراء وراء الصومالي عمر عبد الرشيد علي شرماركي وسنة كي لبض كون يسجل كي سوى رئيس الوزراء وطنك مدن رئيس الوزراء soo dhawow ugu horeyn taariikhda heshiiska is afgaradka MOU-ga inaga iyo Kenya na dhaxmaray maxaad nooga sheegi kartaa horta anagu maalin golaha wasiirada fadhinaa ayaa arrintan horta waxa qaabilsanaa ibidna kala dhaho ibid wasaaradda wuxuu haystay kalluumaysiga iyo kheyraadka badda markaas dowladda ka yimid oo la socdaan dad ajnabi ah ayaa noo yimid adiga waxaa loo soo sheegay inay deadline jirtay continental shelfska ah continental shelfska annaga keliya mayna Kenya oo laga caawinay annagana waa laga caawinay marka waxaa la yidhi waxaa samaysaan continental shelfskiisa mid garay waxaana jira normal procedures oo la maro oo haddii labada dal ay MOU ku saxiixdaan inaysan caqabad isku noqon aysan jirin annaga maalintaas dee Kenya qof arkay iyo qof kala hadlay arrin iyo guriga wasiirada maalintaas fadhiyay iyo wax Kenya la soo hadlay iyo Kenya wax kala hadlay ma jiro waxay un ahayd arrinta dhacaysa caqabad Soomaaliya noqonin aan wada samid gareyno qalfoofta 200 oo nautical mile ayaan haysanay EEZN economic zone ka waxay dhahaan marka waxa la ogaaday continental shelfska inay ilaa 350 marka 150 mile ayaan codsanaynay in dheeri ah adigu dee submission ka saasan ku sameynay MOU-dan waxay ahayd inayna annaga iyo Kenya obstacle inaan isku noqon ayaan darada ugu weyn oo horta waxaan hareereeyey dhibka ugu weyn yacni Soomaali oo la siyaasadeeyey horta MOU-da annaga Soomaali dhul baan ugu raadinayn it was not inaan bixinay maalintaas dhulka aan u samid gareyn hadda Soomaaliya loo ay hesheen rafli waxay u dhigantaa dhulka Soomaaliya intuu yahay cabirka Soomaaliya cabirka waxaan u leeyahay 600 adoo 700 wax dhiman way 700 kun meter square cabirka annaga hadda continental shelfska aan ku codsanay oo Soomaaliya ay helayso waa rafli 618,000 وجون كبتاع واي مدن برايم مينستر marka yaa keenay ajandaha arintan in laga heshiiyo maadaama atri annaga inaan dalbano oo deadline keenu dhacayay ahayd maxaa Kenya soo geliyay meesha ku qasbanaya inaan Kenya sideedaba wixii bad leh continental shelf waa dal codsanay UN-ka iyo nimankii khibrada ah markaas la talinayay oo Norwegian-ka safiirka Norwegian-ka ah oo ka caawinay dalka labada dalba ayaa soo jeediyay yacni obstacle in la isku noqon karo oo qolada kale ay saajin karto marka inaan annaga aan ka samaysano normal procedure dadka xataa West Africa iyo ay u sameeyeen procedure noocaas ah saasa horta keentay marka sida muuqata submissionka inaad dalbato 200 oo nautical mile wixii ka xageeya dhulka jira way waxa waqti laga wada hadlayo waa sax kaas dad badan oo Soomaaliya waxa ku qaldayaan in xeebihii dhulka ay tahay ma ahayn arrintan marka 200 oo nautical mile wixii ka xageeya submissionka in la sameeyo oo taariikhdan qaramada midoobay hadii aan dib u fiirino 10kii December 1982 ayaa shirki ugu horeeyay u dhacay oo ah in xeerkan badaha dalalku ay heshiis samaystaan heshiiskaas shardi waxa lagu xiray in 60 dawladood markay saxiixdo uu sharci noqon doono dawladdii ugu dambeysay waxay saxiixday 13 May
1998 صح markaas ayuu sharci wuxuu noqday sanad kadib oo ah 13 May 1999 صح 10 sano ayaa ka soo wareegtay marka 2009 aad prime minister ka tahay صح waaye marka inaga submission waa wadan kastana meesha waxa ku qoran markaan akrinayay inuu submission sameyn karo inuu 200 yutikal maal wax ka badan u dalban karo صح laakiin qasab ma aha in wadanka dariskaaga aad ka doodaan anaga hadda yemen aan kaaga soo qaaday example waay yemen ma jirin continental shelves sababta badda yemen ma aha bad sida Indian Ocean u furan waay yemen anaga kuma qasbaneen laakiin maadaama anaga iyo Kenya labadeena aan codsanayno out limits oo taasa keentay in talo ay ka timaado UN-ka ee dhahan out limits-ka haddaba caqabada isku noqon kartaa qolob waxbay sheegan kartaa maaragtay arrintaas badda Kenya way yartahay marka loo fiiriyo badeena aad iyo aad u yartahay wasax arrintan ma la isdhihi karaa Kenya ay Norway maadaama tiri waa noo soo jeediyeen dad khubro ah iyo UN-ka Kenya badeedoo yar darteed ayay rabtay inaan ka wada hadalno arrimaha badda laakiin meeshaas waa meesha dadka hawaabisa fiiri wax laga wada hadlayo ma jiro waay sideeda badda niyo ma aha goof meel ku yaal oo qof kasta iska cabiran karo oo maaragtay dhigi karo anaa ka iska dheena iska waay sharciyada waxa weeye sideedaba waxa wax lagu cabiraa equidistance wax la dhaho waay Soomaaliyana waxay leedahay sharci 1972 waan umaleynaya inay sameeyeen anaga taasan ka duulayna Kenya anaga waxaan nuxurkeeda ahaa yeenan caqabad isku noqon inaan out limits aan raadsan waay laakiin never boundary issues ma jirin waay goormay marka Kenya u bedeshay boundary issues Kenya markay submission ka sameeyay ayay parallel samaysay waay anaga leen anaga nagu soo exactly waanu yani equidistance ka tagtay waay moogtahay there's no parallel lane in the law of the sea moogtahay markaas waxay samaysay parallel taasaa keentay inaan reject garayno ayada iyo MOU-da waay innaga marka submission maxaan u sameyn weynay laakiin khaladka gasho wuxuu ahaa Kenya even in the MOU was stated annaga iyaga in delimitation iyo delineation marna ina ka hadlo waay moogtahay waa sax oo isan jirinba wax boundaries heshiis aan ka wada hadalno moogtahay marka maxay samaysay moogtahay sometimes khiyaanada qaarkeed adag kulagu guddoontaa moogtahay waay yani ayaga waxay damceen inay parts of this laba wax u isticmaalaan mar inay bahashaan dib u dhigaan oo ay ka ilaaliyaan ICJ-da inaysan kiiskan gelin laba waxay ahayd inay nagu qasbaan inaan wada hadal la galin mar walba laakiin meel naga xadidaysay inaan diidno waxooda aan ICJ geenana ma jirin xaqan u lahayn inaan ICJ tagno laakiin submissionka marka laga hadlayo mudane prime minister inaad wax submission samayso oo aad dalbato 200 yutikal mile wixii ka xageeya waxay u baahnayd waxa la dhaho consent oo ah ogolaasho kaliya waa inaad warqad qortaa oo aad tiraa dhulkaas aan anigu u baahanahay oo aad submit garaysaa waa sax maxaan ugu kiinay marka inaan marnaba arinteeda waxay objection ay saari kartay maxay dhigi kartay buura naga dhaxay aan aragna markaas laakiin ka horeyba xaajo keentay waxa deadline kan joogno annaga marka naloo keenay waxa sababta naloo keenay oo advice kan naloo siiyo saas ahayd deadline kan ugu dhacay hadduu kugu dhacana annaga waxaan loo isgareynaynaa rafli 600,000 oo yutikal mile oo mudka waa sax oo Soomaali berito khayraad badan uga soo bixi karo therefore taladaasaan qaadanay annaga san habkan u akhrisanay iyo habkan u fahanay wax nuxurkeeda wuxuu ahaa exactly maxkamada lagu raacay ICJ waa aqbashaa 17kii Kenya waxa lagu yiri this was not the boundary issue said with the spirit the intent of the entire thing wuxuu ahaa nuxurkeeda in anaga iyaga aan obstacle isku noqon caqabad isku noqon oo aan gaarno ICJ marka waxa yaab leh Soomaali badan oo waxa arkaa tafsiirka bixinaysa 9 judges oo maxkamada caalamka
iyo looyriskeennii inay inta isku raacaan arrintaas inay saas ahayd hadda weli tafsiir dadka weli si taagan tahay weliba inay anfacday oo aad u anfacday hadda weli wax badan ay anfacday horena xeraalihii guud ee qaranka aad uga hadlayo xeraalihii guud waa meesha keliya waa saas baarlamaanka ayaa kowdii bishii 8aad 2009 adoo ra'iisul wasaare ah diiday MOU-gaas waa sax sababtu ku diiday maxay ahayd de khalkhalaa la geliyay waxaa markii waxaa la soo baxday dad baa waxay dhaheen bahashii waxaa loo siixay Kenya baarlamaanku ma akhriyin baarlamaanku de waxay dhaheen absolute out waa reject galeen markii saas oo anna waan ogolaaday baarlamaanku guddu ma saarin ma baarin wixii ma ogaan may de waqti ma jiro marka timingka ayay qolay muhiim ahaa xaqina u leeyihiin baarlamaanku inay arrintaas diidaan mudan ra'iisul wasaare 19 bishii 8aad 2009 waxaad xogayaha guud ee qaramada midoobe u qortay warqad aad ugu sheegayso in la ixtiraamo MOU ma jirta warqad aan arkay qaramada midoobe maya laba warqad la qoray warqadda Yemen iyo waan u gali doonaa iyo Kenya maya labada Kenya laba warqadood la qoray oo tan baarlamaanka kadib midna Kenya aad uga hadlaysay maya laba eed Kenya waay من waxay ahayd Yemen waay waa 19 bishii 8aad taas waxa qoray waay ana ma qorin waraaqda kuwad ibdiga qoray laakiin ra'iisul wasaare prime minister ka qoran laakiin sixiisa waay okay sixiga waay wasixiisa fiir warqadda oo leeyahay MOU-ga waa in la ixtiraamaa MOU-ga annaga iyo Kenya dhaxmaray waraaqdaas habka loo qoray aniga I had problem with waay waraaqdaas waxa qoray ibi anigu loo markaas dalka waa joogaa dalka ay joogaa wada hadal anaga iyo Puntland aan habka education-ka iyo waxaas loo siinay iyo aan ka hadlay ayaan wadan gudihiisa joogay horta khalada ee ibi inuu markaas anigu dalka jooga asaga qorun waxa jirta saddex wasaar ku xigeen marka marba mid baa acting prime minister marka asaga as an active prime minister ayuu u qoray waraaq taas MOU-ga la ixtiraamo uu leeyahay الاحترام مدحايو واكنولج غرينايا لكن لانجوجكينا ku heshin lagu qoray therefore ana markaas imid wali shay waraaqdaas in ay baxday way waraaq kala qoray inaad aragtay oo arkay warqad kale oo qoray isla maxay ahayd warqadda Yemen aan arkin walaynaa way taas Yemen ma waxay ahayd tan oo muxuu ahaa waraaq labaad aan leeyahay null and void way baarlamaanka aad qaadanayso aan qaadanay way taas baarlamaanka sidaan meesha ku arkay go'aanka baarlamaanka wuxuu ahaa 2 bisha 8aad 18 bari kadib oo 19 ayaa warqadaas IB aad sheegayso labada warqad la qoray sax go'aankii baarlamaanka kadib marka maxaa keenay marka in baarlamaankii kadib uu go'aanku qaatay 18 bari ka bacdi haddana warqadaas IB u qoro نوصل فقط مكاس waxaan jiray Puntland qaraan jiray كل waxaan isleeyahay dad draftiga muxuu ahaa language structure ka soo qornaa language aniga aan markaas ka warhay ma ahan ama aan approve gareey marka ay baxday xataa Sheekh Sharif waan kala hadlay waraaqdaas ilaa baxday oo ogaan la'aantay baxday waan kala hadlay marka kulliba waxaad qortay warqadii aad ku aydeysay arinta baarlamaanka oo aad leedahay baarlamaanka Soomaaliya wuxuu isku raacay in arinta la tuuro null and void oo taas oo marka taasaad adiga UN ku qortay taas oo qoray way mudane prime minister maxaa naga qarsoon akhrintaada haddii baarlamaanka diiday oo maxaa la yiraahdaa arintaas la yiri hal la joojiyo adiga prime ministerka aad qortay warqad oo aad tiri arintaas MOU-ga hal la joojiyo Kenya ay MOU-gaas waligeed ku dhaganayd maxaa naga qarsoonoo horta niyo Kenya meesha maxaa socda horta Kenya adigu markaad ku qabsay ku qadamayso maqashay iyagu waxay raadinayeen wax Allah wixii wax u noqon kara base oo annaga Soomaali ahaan noo qasba inaan wada hadal ka galno si wax sameeyay way hadda wax qowda dhageysanaysa hadda fiiri يعني waxyaabo inay ka khaldan yihiin shalay waxay leeyahay MOU-ga ayaa
dadkaan samaysanay weliba kelmado aan ku qornayn delimitation delineation inayn anaga heshiis rasmi ka dhigeen waxay ka dhigeen waa heshiis loo yarkayna waa maqasho inuu yidhi war xataa languageka waa unambiguous see ku keenteen inaad u fahantaan saas moogtahay labo waxay rabeen inay ICJ-da ka hor istaagaan in aanan ayadoo wada hadal la gelin laakiin xasan sheekh madaxweyne xasan sheekh markuu yimid waa la isku dayay wada hadalka waa soo afjaro waay arrintaa marka ra-iisul wasaarihii madaxweyne xasan sheekh waa u socon weysay wada hadalkii waa isku dayeen maxaa caqabada noqday marka waxa aqoonadooda waxa weeye si kii wuxuu rabta lama aqbali karin qof aqbali kari intaa ka boundaries-kaada au bixiya ma jirin therefore markii la arkay inaysan waxba ka soconayn ICJ-da sababtaasa loo geeyey waana lagu saxsanaa muxuu ahaa waana dee maanta hadda marka dhibka jira waxa weeye shalay waxay dhahayeen MOU hadda dacwo kale keeneen runtii walow aysan hor iman laakiin waxay keeneen wax yaab leh because waxa waaye qofka hadduusan waxba hayn waa aragtay xamar dad baa guryo document usoo haysta markaasa tomre maalinba waraaqi keenaya aan jirin waqti hadda Kenya waxay keentay wax cusub oo la dhaho acquiescence waxay leedahay annaga laba mar waxaan sameynay wax la dhaho self proclamation of boundaries 1979 in 2005 laba mar baa sheegay waan sheegan soo hadda waxay eedeynaysaa labadii dowladood oo waqtigaas jooga ee leedahay kuwaas nalaba xisaabtamin miya waa naga caamuseen waqtiga yani hadda waxay leedahay hadda adin shakadii MOU-da waa ka leexatay taas 2017 ayaa dhinaca looga adkaaday hadda waxay keentay wax loo acquaintances waxa waaye waa anoo sheegtay apartmentkaada adiga dhul yaroo ka soo horjeeda adigana aad tiri wuu hadli waayay ninkaan suuragal ba gudaheed ma dhicin tiro kaleed marka aniga waxay la tahay arrintan runtii Kenya waa ku qaldaneed shalay maantana ku qaldan tahay waxaan equidistance wax lagu xisaabaa mapska ayada hadda waa arrin xaqooda xataa Soomaaliya markay damacada shidaal iyo 90skii inay dowladda siiso mapka equidistance line jira oo exactly ixtiraamayso marka isagoo kan idabkan unnecessary waxa Soomaali madax badan la xaqxagtay adiga ra'iisul wasaare ahayd wasiirkaagii qorsheynta waa la xaqxagtay maxaa la yiraahdaa wasiirka arrimaha dibadda xasan sheekh fawziya dad wax ka sheegay waa arkay laftooda xasan sheekh laftiisa dad wax ka sheegaya waxa soo dhan oo dada waa loo gafaan leedahay wax u dagaalamay waa loo gafay in waa loo wada gafay runtii kulligood waana runtii in laga xal mariyo dadkaas yani xal mariyo kale laga rabo laakiin dadka inay gartaan inay garowsadaan inay ku khaldameen intaas ayaan darada ugu weyn waxa weeye hadda yani farmaajo maalintii 2016 dacwadda socotay asagoo halka jooga ayaa la warsaday waraysi lala yeeshay waxaa la yidhi war dowladda Soomaaliyeed xaq ma u leedahay inay wax ka waa dhihi waay wuxuu ku celceliyey haddii Kenya waxay leedahay isfahan aan la gaarin dadka xataa waa dhihi waayey maxkamadda aan ayidsana Soomaaliya inay dowladda Soomaaliya inay geyso maxkamad waa ayidsana waa dhihi waayey waraysiga waan loo daan arkay asoo saas tahay anaga hadda kuma eedeynayno muxuu ahaa intii uu joogayna dacwadii maxkamadda waa dhaqaaq weys wana ku eedeyn inta soo jeera loo dhigay waa sax in dib loo dhigana waa didi karay oo inuu hor istaagi karay laakiin haddana saas oo tahay wadanadiisa iyo inaan ka daba qaadano iyo waxaan wax Soomaali leedahay weeye Soomaali dhan ka dhaxaysa in wixii markaas inaan anagu dhan hal meel ka soo wada jeesano ayaa muhiim ah inaan anaga fursad wada ayaan dad jirta waxay tahay dadka taageeraya dadka annaga nacaynaya wali aftaas ugu dambaysa ugu darnay dadku waa la siyaasaday aad loo siyaasaday dadka hadda taageeraya dadka hadda waxaan sheegay waa dadka taageersanaa ama ka dambeeyay qalbi dhagax waa dadka qadidii OLF ka soo horjeeda OLF qolan ma qabiilna qadida ah qolaha u badnaato laakiin qadida ah qadidii annaga ruuxeena la gaarsiisay inaan xor noqonay ahayd ilaa maanta argagixisay ka xisaabsan tahay Soomaaliya gudaheeda weligeedna ma dhicin
مدعم وده حتى انت لو ادويه كم حساسنا القص اون دولة تجري iyo dowladda Soomaaliyeed kaliya argaxisoo yaqaan waqti dadka saas ah onihu yaani arintaas ama dadkii falkeeda lahaa ama ku taageeray ayaa dadka la wadineedoodii banaysanay waa xortiyaan loo waqti waxyaabo marka arintaas runtii waxay u baahan tahay in aad looga fiirsado qof kasta Soomaaliyeed maanta maxkamaday taala maxkamadii ana maaragtay meeshaas waxaan ugu dambeysay inay Kenya u jeedo lahayd waxa u daliilay inay xataa maxkamadda xaadir weysay way ka leexatay arintaas dadka Soomaalida ku dhageysanaya maanta wixii dadku kala gaaray dadkii propagandada ka qayb qaatay dadkii intaas oo qof oo Soomaaliya loo gafay maxaa dhilay runtii niyo aniga xafis anigu waxa ma haysan shalay markaan Soomaalida dhulka u raadinaynay 150 Soomaalina anaga horta ayaan darada taas ay dhul u raadinaynay Soomaali waana insha Allah dhulkaas waa helaysaa 350 Yemen waan ku istaagnay khaliidadii ay samaysay waliba khatar ah taas aseeda keeneen geed waan ku istaagnay waan khasaan waxaas oo dhan maalin intaan soo istaagnay awal kuma sheegay soo waajib ma saarnaa qofkii joog waajib saaran way واصح qofna wax uma haysano laakiin maanta waxay ka dambaysaa dadka isdhaha arintaas siyaasadeed oo hadda dad caay oo sharaftooda banaysta waxay la tahay in dadkaasi in la xisaabtamo sharcigu dadka aad iyo aad baad u mahadsantahay ra'iisul wasaare hore Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke runtii karaamo weyn iyo sharaf bay ahayd inuu iga aqbalo inaan waraysigan ka qaado oo aan wax ka weydiiyo tuhunka dad badan oo Soomaaliyeed ay qabaan وانا رجينا dad badan oo Soomaaliyeed wax garad ah inay fahmi karaan waraysigan iyo waxa ku saabsanaa iyo jawaabaha uu ka bixiyay arintan qadiyadan badda ee murankan inaga iyo Kenya noo dhaxeeya intaanu mar kale kulmi doono waxaan ilaahay nabad gala wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh mudane si aad mar walba u hesho barnaamijyada ka baahan noolaato oo dhammaystiran waxaad u baahan tahay inaad rukumato ama subscriber ka noqoto barta YouTube-ka adiga oo markiiba heli doono barnaamijka markii aan soo gelino waad ku mahadsan tahay ku xirnaanshaha ha noolaato taageeradiinu wax weyn bay noo tahay mahadsanid